waxaa jiray xaakin wuxuu lahaa hal wiil u dhalay halkaas wiilna wuu xanaaq badnaa markastuu xanaaqo dadka hadallo xunxun ayuu ku dhihi jiray laakiin isaga inuu dadka hadalladaas ku dhaho raali kama ahayn uu ka shalayn jiray wiil fiican ayuu iska ahaa yacni dadkii uu yaqaanay iyo asxaabtiisa way ka wada fogaadeen maadaama ninkan uu hadal xun yahay wiilkii kali ayuu noqday asxaab ma lahan dadkii dhan way ka fogaadeen xaakinkii arrinkaas raali kama ahan wuu u fikiray wuxuu is yiraahday wiilkan sidee xanaaqa uga baabi'isaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu u keenay bac buuxdo oo masaamiir ku jirto sidoo kale alwaax iyo burusna uu u keenay wuxuu yiraahday aabi dhageyso mar walba aad dareentid xanaaq alwaaxan masmaar la dhac waayuu yiraahday wiilkii uu ka qaaday aabihii maalinta ugu horeyso 20 mismaar ayuu alwaaxi ku garaacay maalinta ka dambeysay cadadka masaamiirtu alwaaxa ku garaacay way soo yaraanaysay ilaa laga gaaro maalin uusan wax mismaar ah alwaaxi uusan ku garaacin ilaa isbuuc dhan isagoo faraxsan ayuu aabihii u tagay aabo ii hambalyaday waan fiicnaaday isbuucan oo dhan wax mismaar ah kuma garaacin macnaha xanaaq dhan iskuma arkin aabihii wuxuu yiraahday yaa ku gaaray wali hool baa ku dhiman wuxuu yiraahday mar walba is aragtid inaadan xanaaqaynin masaamiirta aad ku garaacday hal xaba siib waayuu yiraahday maalin walba hal mismaar ayuu siibi jiray markuu dhameeyay uu u tagay wuxuu yiri aaba waa ku sheegay aniga waan fiicnaaday wuxuu yiraahday hadaba hal shay oo muhiim ah ayaa ku harsan marka wuxuu yiraahday godadka masaamiirta aad ka siibtay baabi'i markaas wuxuu yiri aaba godadka ma baabi'ismaayaan adigaba waad ogtahay hadaba si fiican ii dhageyso yiraahday wuxuu ku yiraahday masaamiirta alwaaxa ala dhaceysay waa hadallada xun aad dadka ku dhihi jirtay siibitaanka masmaarka aad siibaysana waa raaligelinta aad ka bixi jirtay hadalka xun aad dhexday laakiin godadka waa raadka ku haray hadalka xun aad tiraahday si kasta raaligelin uga bixisid qofkaas ma ilaabi doono hadalka xun aad ku tiraahday fariin qof walba xanaaq badan markuu xanaaq dadka oo hadalka xun ku dhaho sidoo kalena qof iska caadaystay dadka inuu hadallo xun dhaho dadkaas hadallada xun aad dhexday weligood ma ilaabi doonaan ilaa qabriga ay ka tagaan dabeecada iga ahayd iyo marka xanaaqa sidaas ahayna marmarsiyad kuma noqonayso wax aan la bedeli karin adduunyada ma jirto kaliya markasta waxa ka fikirtaa sida jeclaan lahayd in lagu la dhaqmo dadka ula dhaqan wabillahi tawfiiq